deeq raashin ayaa loo qaybiyay dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Yogoori saaxa gabagabo iyo waliba magaalada Laascaanood. Deeqda raashinka ay soo gaarsiisay hay'adda Masno. Dadweynaha deeqda raashinka ka faa'iideystay si weyn ugu mahad celiyay hay'addaasi, iyagoo ka codsaday hay'adaha kalena inay sidaas oo kale u soo gaarsiiyaan. Mas'uuliyiinta maamulka hay'addaasi iyo waliba maayarka degmada Yogoori ayaa ka hadlay deeqda raashinka ee la soo gaarsiiyay degmadaasi. Sidoo kalena waxaa laga hirgeliyay deegaanada deeqda raashinka la gaarsiiyay ceelal ay ka faa'iideystaan dadka danyarta ee ku dhaqan deegaanadaasi. walaalaha iyaga noo keenay ee halkaan noogu qaybiyay baan u mahadnaqaynaa hay'adda Masnaan u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyo ilaaha weyn ee noo keenayna quudiya waxaan doonaynaa oo idinka codsanaynaa sida aad maanta noo siiseen oo kale inaad idinka maalina noo siisaan inanka noo wada ee aadan jaamac inaad noogu soo dhiibtaan oo uu noo qaybiyo ayaanu idinka codsanaynaa walaal inankaasi guul fiican buu ka qaatay dadkii masaakiinta ah shacabkii dadkii abaarta haysay ay si fiican buu ugu qaybiyay idinna waad aragtaan waxaan doonaynaa aadan jaamac inaad noogu soo hagaajisaan oo uu noo qaybiyo bil walba haddii aan la waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha raxmaanka ah waxaanu kale u mahadnaqaynaa hay'adda Masne noo soo bixisay raashinka iyo mucaawinada noo fidisay waxaanu kale u mahadnaqaynaa hagayaasha noo sidee noo keenay raashinka waxaanu kale u mahadnaqaynaa wiilka noo loo xil saaray raashinka banaanka noo dhigay noo qaybiyo waxaanu kale u mahadnaqaynaa idinkiina noo keenay deena qaabilsiiyay idinsaa u qaabila dadweynaha shacabka kaliita mid kasta ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad oo dhan iskale maanta chance fiican bay noo tahay fursad aad iyo aad u qaali ah inaan nimaadno gobolka Sool isla marhaantaasna anagoo kala qayb qaadanayna hawlaha gurmadka iyo bibiya soo saarka abaarahan inta badan iska soo daba noqday waxay ka dambeysay baaqi xukuumaddu ay horeba ugu baaqday in si degdeg ah ummadda loogu gargaaro wixii la qaban karo la qabto saadaradeed anagoo la kaashanayna hay'adaha aan saaxiibada nahay iyo walaalaha nahayba waxa noo suurta gashay inaanu maantana aanu halkan aad arkaysaan oo Yogoori ah iyo gobolka Sool aanu ka sameeyno ugu yaraan ilaa 3 ceel oo aan ugu talagalay in biyaha ay dadku ka dhaansadaan oo xoolaha laga waraabiyo oo lagaga fursado dhibtii xagga biyo la'aanta iyadoo ay tahay 3dan ceel ay ka mid yihiin ilaa 10 ceel oo aan gobolada aan ka sameeynay Maroodijeex iyo Togdheer iyo gobolka Sool baan ka sameeynay anagoo ugu talagalay in dhibaatada lagaga khafiifiyo ummadda reer Soomaaliland waxa kale oo iyadana halka fursad weyn noo ah in iyadana aan ka qayb qaadanayno deeq raashina oo aan insha Allah taala iyadana aan siin doono gobolka Sool iyo degmadaana joogna hadda Yogoori aan rajaynaa insha Allah taala iyadana inay wax badan ka khafiifin doonto kulliba dadka aad ka dhibaataysan iyadoo la wada gaari karin ba mar kastaba laakiin haddana kulba intaanu gaari karno iyo intii aan isleenahay awoodiina way gaari kartaa inaan anaguna aan wax ka gaarsiino anagoo rabna in aan kala qayb qaadano ummadda reer Soomaaliland mahad u soo jeedinaa gaara hay'adda Masna Foundation oo ah hay'ad khayriya jasaakumullahu khayr mucaawimada aad soo gaarsiisan walaalihiina jilicsan ee jilaalku hayo oo ay run ahaantii ilaa 50 kilomitir dadka ugu dhow ay u soo joogaan waxaan mar labaad idinku mahadinaynaa raashinka sida hagar la'aanta ku soo gaarsiiseen waxa kale oo iyadana aanu idinku mahadinaynaa eel aad halkan nooga xidheen oo in aanu helo biyo nadiif ah oo qashinkii iyo wixii ku soo shumi jiray degadii wixii laga xidhay runaantii biir buu ahaan jiray markii hore iminkana waa la qoday waana la xidhay oo wuxuu la mid yahay maanta ceelasha caalamka oo kale ayuu la mid yahay marka waxaan idinku mahadinaynaa walaalayaal sida hagar la'aanta ilaahay khayr idin siiyo wada soo dhaweynaa sidaas oo kale noo soo gaarsiiyo walaalihiina jilicsan waxaad ugu deeqdeen oo soo qaadeen sidaa soo gaarsiiyo meeshaad ka soo qaadeen waa ceel u siman bulshada ku nool degmada Yogoori waxa ka cabaya qofka magaalada degan waxa ka cabaya ka baadiyaha si macna loo xakameeyo biyo la'aanta mar walba dhacaysa insha Allah taala waxaan ka codsanaynaa bulshada inay ilaashadaan waxyaalaha muassasaadka ama hay'adaha ay macna u qabtaan si intifaacoodu uu sii dheeraado haddana waxaan ku soo dhaweynayaa maamulaha gudoomiyaha hay'adda Masno si insha Allah taala waxaan aad ugu ducaynaynaa dhammaan ugu mahadnaqaynaa qof kasta oo muxsin oo deeq bixiye ah waxaan leenahay meeshuu ka soo bixiyay ilaahay ha ugu darif ciwad Allah u galiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qof kasta oo muxsin ah oo ka qayb qaatay ama musaahameeyay tanfiidka xafra hadii albir insha Allah taala in ilaahay ومضاعف وقدقه مالكي سنة بركيه إننا ما حرجينا إن شاء الله تعالى إنه كفاية سنوسي هوايسن
oo aynu noqono kuwa ilaashada waxyaalaha deeqda la soo gaarsiiyay kuna intifaaca si ay ugu dabooshaan baahidooda. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا كثيرا أن نوزع اليوم هذه المساعدة التي تتكون من المواد الغذائية التي أعدت للمتضررين بالجفاف والمجاعة في القرن الإفريقي. وهذه المساعدة تتكون من كيس من الأرز وكيس من الدقيق وكيس من السكر وعلبة زيت. وإن شاء الله تعالى هذه المساعدة وصلتنا من الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب جيبوتي، ونحن بدورنا نقوم بتوزيعها على المتضررين بالجفاف والمجاعة في القرن الإفريقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المساعدة في ميزان حسناتهم المحسنين الذين تبرعوا بهذه المساعدة الكريمة. كما نشكر لحكومة سوماليلاند خاصة مكتب المساعدات في القصر الرئاسة خاصة آمنة محمود طيري وطاقمها الكريم. ونحن اليوم في مدينة يوغوري في محافظة السول، وكما ذكر الأخ يعني قمنا بحفر 3 آبار من هذه المحافظة وتوزيع مواد غذائية مكونة من هذه المواد التي ذكرناها سابقا. waxa aad iyo aad noogu sharafa maanta in aan markaasi joogno gobol ka mid ah gobolada Soomaaliland waxa weeye gobolka Sool. waxa insha Allah taala aan ka fulinay gobolka Sool 3 ceel oo markaasi ceelasha gacmoodka ee ay dadku ka cabaan biyo nadiif ah oo iyagu ay ka faa'iideystaan xoolaha ay ka faa'iideystaan. waxa kadalika markaasi maanta halkan aan ku qaybinanaa musaacadaad ama sadeeq raashin ah oo aan ugu talagalay dadka abaaraha ku tabaaloobay ama se jiilaalka iyo dhibta badan ay haysato gaar ahaan dhulkan waa arkaysaa hayaanka socda iyo geediga iyo markaasi baad la'aanta. marka dadku aad iyo aad markaasi ugu baahnaayeen insha Allah taala musaacadana waxay noqonaysaa masno gebigeedu markaasi insha Allah taala sadaqtiin waxay ka shaqeysaa waxyaalaha dadka saacida sida biyaha waxbarashada masaajida waxyaalahaas oo dhan gaar ahaan waxaan aad iyo aad uga qayb qaadanay biyo dhaamintii adkeyd ee markaasi sanadka markaasi ka dhacday waddanka insha Allah taala golana aan qaybinay. aad baan ugu mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta Soomaaliland iyo Al-Akh Ahmed Haadi oo isaguna kaalin la xalka qaatay fuditaanka ceelasha iyo diyaarinta markaasi dadka baahan. waad mahadsantihiin aad baad ugu mahadnaqaynaa.